sidii ku ogaaday Daahir Calasow in garyaqaan xabsigii laga baxshay. Daahir Calasow hameen walba ama waxaan dhihi karnaa saacad kasta kombiyuutarkiisu fiiri jiray bal yuusan qofna kaaga hormarin. ugu dambeyn hameenkii Jacob Faray uu guuleystay. Daahir Calasow markii kombiyuutarkiisa galay ee uu garyaqaan ka fiiriyay result no resultigaana u soo baxay. dad badan markii ay hadalkan Daahir Calasow maqleen waxay aamineen Daahir Calasow inuu yahay nin bala ah sirdoon ah meel walba jooga ogaa karana xabsiyada Mareykanka qofka laga bixinayo iyo qofka la gelinayo si yar oo fudud oo Daahir Calasow garyaqaan maalintii la xiray iyo maalintii xabsiga laga baxshayba uu kula socday aan rabaa inaan halkan kaaga cadeeyo iyadoo waliba dukumeentiyadeeda iyo cadeymaheedaba wadata intaan u gudbin horta ila dhageyso hadalka Daahir Calasow برنامج هو ذي ناي نيجي قريقانها ولا لبحي حلي كل 8 ساعة مركي أهيد قارض يوروب أي على لبحي ساسو قدا حقال له وذا مرك حقال جويلكي أنا موجي habeenkii dhaweyd oo uu gabangabada ahaa tartankii doorashada ee u dhaxeeyay Jacob Faray ninkii cadaanka ahaa iyo Umar Faatax wiilkii Soomaaliyeed. Daahir Calasow wuxuu kamid ahaa dadkii watay ninkan cadaanka ah oo u ololeynayay markii uu dabaaldegayay Jacob Faray oo doorashadii ay soo gabangabowday. Daahir Calasow iyo dad badan oo la saarnaa qolkiisa asagoo sheeko u wada wuxuu ku soo dhex tuurtay hadalkan. Abdeed cusub aadeen haya ninkii garyaqaan ahaa xalay ayaa xabsiga lagala baxay. Aan u soo laabtay jawaabteeda markaa. Waxaad ogsoontihiin garyaqaan markii la xiray 30 bishii May. Daahir Calasow wuxuu kamid ahaa dadkii ugu horeeyay oo website-ka ICE intay booqdeen information-kii ay immigration-ku soo dhigeen website-kaas soo qaatay dadkana u xaqiijiyay inuu garyaqaan halkaas ku xiran yahay. qof walba oo internet isticmaalaya xitaa baadiyaha fog ha joogee website-ka ICE hadduu galo Muhammad Maxamuud uu ku qoro sidoo kalena number 228 numberka gaarka ah oo garyaqaan ayuu ahaa qofka intaas website-ka ICE ku qora isla markaasba waxa u soo baxay information dhameystiran garyaqaan inuu ku xiran yahay gobolka Minnesota magaalada Wilmer xitaa tuulada uu ku yaalo xabsigii uu garyaqaan ku xirnaa oo lagu magacaabo Candiyaho Country Jail. marka maalintii garyaqaan la xiray ilaa maalintii uu xabsiga ka soo baxay Daahir Calasow hameen walba kombiyuutarkiisa ayuu soo qaadan jiray wuxuuna booqan jiray website-ka ICE bal inuu garyaqaan wali ku jiro iyo in xabsigii lagala baxay. sidoo kale qaybta kale maxkamadda waxay ku sheegeen information ah taariikhdii garyaqaan la xiray go'aankii maxkamadda ee 8 September garyaqaan markii uu removal-ka u soo baxay ama dalka in laga saaro. sidoo kale 8 September in garyaqaan la siiyay maxkamad racfaan loo diray. sidoo kale 8 October markii la gaaray inuu dhamaaday xilligii racfaanka garyaqaanna wax abiil ah uu asagu qaadan oo uu asagu diiday inuu wax racfaan ama abiil uu qaato maxaa yeelay Mareykanka rajuu ka leeyahay dacwo ku tagi karaa line kale ku tagi karaa. marka laga soo bilaabo 8 September markii garyaqaan removal-ku uu soo baxay Daahir Calasow hameen walba ama waxaan dhihi karnaa saacad kasta kombiyuutarkiisu fiiri jiray bal yuusan qofna kaaga hormarin. wuxuu gali jiray numberkiisa iyo magaciisa bal inuu xabsigii wali ku jiro iyo in kale. subax walba ama hameen walba waxa u soo bixi jiray magaciisa iyo inuu wali ku xiran yahay Candiyaho Country Jail. ugu dambeyn hameenkii Jacob Faray uu guuleystay. Daahir Calasow markii kombiyuutarkiisa galay ee uu garyaqaan ka fiiriyay page-ka ICE inuu wali xabsigii ku jiro waxa u soo baxay result no resultigaana u soo baxay. wuxuu arkay ninkan in xabsiga laga saaray isla markii live soo fariistay cabaar uu hambaliyay ninkan Jacob Faray cabaar markuu ismashquuliyay dadkii daaqadaha u saarnaa hal mar marka hadalkan u sheegay. marka ha ogaadaan dadka aaminsan Daahir Calasow inuu yahay nin sirdoon ah bala ah meel walba la socda. Daahir Calasow wuxuu yaqaanaa sida khayaaliga loo dhiso sida fuustooyinka iyo daraamooyinka loo dhiso iyo sida maamooyinka loo rikaateeyo.